ولقد آتيناك 7 من المثاني والقرآن العظيم لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين وقل إني أنا النذير المبين كما أنزلنا على المقتسمين. رئيسي نوغو فرفوري دونا xafladeennan maayirka magaalada Qabribayax inta marka kaga imaado kulli waa farxad aad u balaaran meel la yiri waxa weeyaan furitaankeeda mabda'a ka dambeeya inuu noqdo waxa weeyaan in diin iyo la isbaro waxa weeyaan cilmi diiniya taa lafteedu waa alxamdulillah in hoolkii wax laga dhaxay jiray wax walba laga dhax sameyn jiray in maanta quraan lagu furayo dad la isku yeedhayo isla hoolkan magaciisana ku suntan yahay culimadii magaalada oo dhalatay marka taa lafteedu waa isbedelada 6 sano hadda isbedel ku dhacay waxa weeyaan yimid weeyaan waa tan labaad hadii tarbiyada iyo akhlaaqda diiniga qofka aan laga dhisin marka ugu dambayso wuxuu noqdaa qof diin la'aan anagu waan ka duwanahay magaalooyinka kale waxana kaga duwanahay inta badan dadka magaaladan waxay tagaan qurbaha marka la culimaa oo si wanaagsan wax uga saxmay tuulo kastana ina saa ardayda iyagoo arday ah in ay tatbiiq amali practical ay ku soo sameeyaan ma rabnaa miyiga hadii la yiraahdo qorsheena koobaad weeyaan qorshaha labaad ee inoo qorsheysan waxa weeye rag iyo dumar dadka waaweyn iyo dadka yaryar baayo inay meeshan ay ka faa'iideystaan meeshan lacag baan ku bixinaynaa hadda waad garanaysaan wax bilow ah oo zero laga bilaabayo markaaba kuma siinay lacag laakiin waa inaad lacag geliso si aad u gaadho hadafka iyo ujeedada aad rabto ilaa ay hadda waxaan jeebkeena uga wadnaa lacag haday macallimiinta noqoto haday qalabayn noqoto wax kasta uu u baahan yahay wax shacabka ka imanaya ma waa wax anaga jeebkeena aan ka bixinayno si bulshada mustaqbalka ay ugu intifaacdo waxa la yiraahdaa waa dhiman laakiin raad ka hadho waxaan rajaynayaa raad inuu inaga hadho aad iyo aad baan idinku mahad celinayaa dhamaantiin Qabribayax waan dheereeyay hadalka barakallahu fiikum jazaakumullahu khayran inta kadib waxaan u mahad celinaynaa maamulka magaalada Qabribayax ugu horeeyay maayirka walaalkeen khayr Allah siiyo waqtiga dheer oo noo qaatay sidoo noogu sii samrahayay sidoo noogu fadhiyay khayr Allah siiyo sidoo kale xafiis golaha arrimaha islaamka iyo culimada iyo salaadiinta fadhida ee maartay noo sii samrahayay iyaguna waan u mahad celinaynaa qodobka ugu muhiimsan waxa weeyaan markiiskan meesha laga furahayo Qabribayax baa loo furahayaa Qabribayaxna waxa laga rabaa inay ka faa'iideysato diiwaangelintu way diiwaangelinta bilaameysana ilmo walba waa inay noqoto hooyo walba aabo walba markiiska ay gaarsii bari hore waxa jiri jiray mar la oran jiray farmaajo ay gaarsii hadda waa inay noqoto markiiska ay gaarsii Qabribayax xaafadaheeda tuulooyinkan u dhow markiiska ay gaarsii xagee loo maraa waa inay noqoto horta wax la rabo inay ka faa'iideysato goobta waxbarasho iyo raggan iyo waqtigan qaaliga la sukeeray in laga faa'iideysto waa arin aad muhiim u ah way runtii on soo noqonaynin fursaduna hal maalin bay taagan tahay sanad dugsiyeedkiina uu taagan yahay hadii xitaa ilmuhu iskuul u dhigto galinkan ha dhigta galinka way haboonayd in intii hadasho la inoogu daayo oo inteeda kale dhageystayaal aan noqono waayo inaan soo xadiray ayaa nagu filan xurmana ugu filan qiimayn ugu filan ay ku fiicnayd wax marka saas darteed wax badan ma oranayo sheekh waan yar sheekaysanay sheekh xasan horta ilaahay subxaanahu wa ta'ala
aynoo barakeeyo dadaalkiisu dadaal caadiya maaha dadaalka uu wado ee uu deegaanka ka wado dadaal caadiya maaha waxaa laga yaabaa dad badan inaynan aad uga warqabin oo inuu wadaad meelaha iska xaragoonayo iska socod badan inuu yahay loo arko dad badan oo iska socod badan way jiraan laakiin aan midhahooda la arkaynin waxa weeye Sheekh Xasan midhihiisu waa u muuqdaa وأنذر عشيرة الأقربين ayaadna moodaa inuu kaga bilaabayo qabri biyaxbu u qabyaaladayay oo macadkii ugu qiimaha badnaa ugu muhiimsanaa ayuu ka aasaas insha Allah dadaalkiisu inta kuma koobnaanaya oo sii soconaya oo ballaaranaya wixii macadka lagu oranayo waxa kale ka oran maayo inta culimadu tiri ayaa igu filan laakiin sheekh waxaan kula taliyay aananaya waa in la isjecel yahay laakiin haddii canaan la waayo meesha xumaata iyo nacayb baa yaal macaahid waxaan u malayn inta aynu hindisnay inaynu bilowno inaynan yarayn muddo hadda 10 sano aan u malaynaya in laga joogo macad baynu ku dhawaaqnay aasaasnay dhisnay rag waaweyn oo mudarrisiin ah gacanta u gelinay cid u soo xarootaba markuu waxaan idinku darayaa uun macadku dabcan waa inoo furan yahay arday hadda fara badan oo boqolka u dhow baanu diiwaan gelinay oo ardayda madaxeedii ah duruustuna haddii alla idmo in ay bilaabato wiiga soo socda baanu ku tala jirnaa haddii alla yidhaahdo intaa waxaan ku darayaa qaybaha macadku ka kooban yahay xog ahaan waa qayb culumta shariicada ah oo culumta shariicada haday fiqi tahay haday tahay luqadii carabiga haday tahay hadii ay tahay aqeedadii hadii ay tahay culumtiisi intaba inta hoos laga bilaabo si jaran jara kor loo dhameeyo hadii alla idmo si fiican ardaygu gelinka hore qayb baa galaysa ilaa duhurka gelinka dambana qayb baa galaysa ilaa ay maqribka habeenkii ardayda waxaan ku talagalay ragga waaweyn iyo dadka waaweyn oo ay macallimiinta quraanka ugu horeeyaan ana halka uga faa'iideysanaya macallimiinta quraanka dhigta balaba iyo jir galabta hadii la idmo kulmaynaa macka ku kulmaynaa inaas waa xog hordhaca oo bulshada siinayna hadii la yiraahdo macadkani waa macadka qabri bayax wali noo soo qabyaalaysan culimadu noo sheegaan oo nasiibkeena sidaa noqday roobkan hadii alla idmo gaari doonaa deegaanka oo dhan inuu gaadho baan rajeynayna inanka alle marka laga faa'iideysto hadii la yiraahdo dadka aan wali soo gaadhin la soo gaadheen waa ka soo gaadheen inta aanu waqtigu naga dhamaan hadii alla idmo intaas ku soo